ma tahay qof soo gooya akoono badan ugu yaraan 2 ilaa 3? ma tahay qof mar walba uu trade u guuleysta hela faa'iido yar marka uu khasaarana khasaara lacag fara badan? tusaale 5 trade oo aad ku soo wada guuleysatay dhammaan faa'iidadoodii oo la isku daray hal trade oo aad ku khasaartay ma u dhigmataa? example 5 trade oo ku soo guuleysatay $100 oo kala ka soo sameysay hal trade oo aad ku khasaartaa 100 ama $200 ku khasaartay ka bacdi. ma tahay qof kale trade-ka adiga oo aadan ogeyn lacagta kaaga lumi lahayd trade-kaas? ma tahay qof mar walba bedela SL-ka? ma tahay qof SL la'aan gala trade-ka? haddii aad tahay qof leh cilladahan midkood waxaad khatar ugu jirtaa inaad gubto akoonkaaga. muuqaalkan waxaan diiradda ku saari doonaa daawadayaal sidaad uga hortagi lahayd inuu akoonkaaga trading-ka uu kaa gubto. halkani waa Elliot Youth Adjust. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta daawadayaal. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada janna galayaal. sida ciwaanka inooga muuqdaba mowduucana maanta waxa uu ahaa doonaa sidee looga hortagaa akoonkaaga inuu kaa gubto. waa ay fara badan yihiin tallaabooyinka iyo waxyaabaha loo baahan yahay inaad samaysid si akoonkaaga uusan kaaga gubanin, laakiin kuwa ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadan doonaa maanta hadduu alla yiraahdo. qodobka ugu horeeya waxa waaye samayso khasaare xakameeye ama stop loss. khasaare xakameeyaha ama stop loss-ka waa waxa ugu weyn oo ku badbaadin doona suuqan. inaad samaysataa waxay kaa caawin doontaa inaad ogolaato lacag cayiman inay akoonkaaga ka baxdo. middaa beddelkeeda haddii aadan samaysanna akoonkaaga waxaa ka bixi doonto lacag aadan ogolaan adiga. sidoo kalena awood uma yeelan doontid inaad joojiso lacagtaas ilaa ugu dambeyn uu brokerka ku dhaho fadlan lacag ku shubo. cilladan oo qofka inuu SL la'aan kala trade-ka waxay ku dhacdaa qofka inuu ka baqo inuu khasaaro lacag yar oo asaga ogolaaday. taas beddelkeeda waxaa ku dhici doonta marka qofka intuu isdhahayo waxba khasaarin oo markasta iska guuleyso faa'iido yar samay trade-ka xir, faa'iido yar samay trade-ka xir. laakiin marka dambe qofkaas waxaa ku dhacaysa in uu trade inta galo isagoo intalad weyn ku galo SL yarna dhigtaa oo suuqii kusoo laabto marka uu arkaa inuu sameeyo inuu SL-kii dhammaa ka furo isagoo isdhahayo lacagta may soo laaban doontaa. markaas waxaa ku dhacaysa qofkaas inuu suuqa soo laaban waayo isagoo isdhahayo hadduu soo laabana akhiiran akoonkiisa sidaasuu ku gubanaya qofkaas. suuqan wax loo imaado waa inaad faa'iidid aadna khasaartid. ogolaaw khasaaraha laakiin adaa maamulo bilowga hore taada trade-ka gelin ka hor lacagtaada waa inaad lacag cayma ka ogolaataa. step-ka labaad oo loo baahan yahay inaad samaysid khatar geli tira cayman oo boqoleeyaha akoonkaaga, tusaale 2%. qodobkan wuxuu kaa caawin doonaa in lacag cayman aad og tahay ee riski kaaga jirto mar walba oo aad trade gelaysid. tira cayman oo boqoleeyaha inaad khatar gelisaa trade walba aad gelaysid waa qaydada ugu weyn ee aad suuqan uga guuleysan karto. middaa beddelkeeda haddii aadan trade walba tira isku mid ah oo khasaare ah aadan qaadan waxay kugu samayn doontaa lacag aadan tiradeeda ogeyn oo aadan filayn inay akoonkaaga ka lunto. tusaale waxaa jira program oo website-keena uu leeyahay oo kaa caawinaya in lacagta akoonkaaga kugu jirtaa markaa gelisid kuu sheegayo lacagta aad u baahan tahay percentage ahaan inaad riski gelisid dollar ahaan kaaga dhigayo. markaa soo baxday website-ka markaa soo booqatid resourceska markaa joogtid waxaad imaadaa trading toolska position size soo dooro calculator. kan wuxuu kaa caawinaa marka waxaad samaynaysaa in lacagta aad gelaysid inta soo dooratid lacagta akoonkaaga ku jirta haddii dollar tahay midaa soo deposit garaysa waa mida dollar ka dhig. hadday wax kala tahay euro iyo pound waa dooro kartaa. inta waxaa gelinaysaa akoonkaaga akoon balansigaaga. tusaale $5,000 kugu jirta. $5,000 tira cayman markasta aad trade qaadanaysa inaad gelisid waajib kugu ah oo aadan marna ka badin marna aadan ka yadeen. sambal hadda 2% yaa usoo qaadan annaga 2% akoonkayga ka mid ah $5,000 marka akoonka ugu jirto 2% maxaa u ah 2% yaa lasga gelinayaa 2% yaa soo doorana waxay u tahay asaga inoo sheegi doona. stop loss-keena tusaale waa 100 bib calculate meeshaan. sidaan u jeedno $5,000 markay noogu jirto 2% waxaa waaye $100. akoonkeena $100 trade kasta aan qaadanayno $100 inay runtaa rabnaa, ka badan marno ka yarna marno. sample trade-kan 100 bib SL-kiisa yahay 0.10 u geli doonaa.
macluumaadkii asaga kuu sheegi doona kaliya account balance-ga geli, trade-ka gelaysa, SL-kiisa geli, risk account inta gelinaysidna geli meeshaan automatic asaga waxa kugu soo bixi doona lacagta ka lumaysay lodka aad ku gelaysid waxa dhan asaga kuu sheegaya. hadda lacag kale aan soo doorto euro card oo kale waa isla boqolkiiba $5,000 akoonka ugu jirto 2% risk geli calculate aan dhaho kan maxaad u jeedaa waxa isbedel boqolkiiba isbedel markasta boqolkan u taagnaana muhiimada mid daan waa cost 2% risk soo gelina marka laakiin lodku ay bedel xoolo batay 1.103 ayuu noqday because big value waxa la hayaa jiro lacagaha dadku ay kala duwan yihiin euro USD abonnet midaan laakiin waa ay dibkeeda waa ka hooseeyaan midaas big value-geeda. big value calculator inta waa ka soo fiirsan kartaa big value calculator inta waa ka soo fiirin kartaa lacag kasta iyo inta ay ku fadhiso. tusaale aan balance-ga bedela marka aan ka dhigo $1,000 ma 2% u ah aan xisaabin calculate waa $20 muhiimada intaas waa balance-ga geli asaga kuu sheegi doona percentage ahaan lacagtaas waxay u dhigmato $20 ka badan inay kaalmo lamar wada $1,000 kugu jirta meeshaas waxa ku bixi doona oo aad iloobi doontaa waxa la yiraahdo default lot size oo dadka markay cusub yihiin oo ku dhagan hadii $100 kugu jirto 0.01 ku gal hadii $1,000 kugu jirto 0.10 ku gal hadii $500 kugu jirto 0.05 ku gal waxaas dhan qadka ka bixi doona waxaas dhan wax jira ma aha default dadka lagu programmeeyo waa qasaare hadda tusaale aan soo dooran euro USD asalkeena $100 waxaa ugu jirta akoonka $500 2% akoonka dina risk la raadna calculate dhahno meeqa inoo soo baxay 0.05 waa $10 $500 dib ugu jirta $10 ka badan akoonkaaga inay ka baxdo lama rabo 2% risk gelisid haddii meeshan 0.05 ka dhigi lahayn $50 noqonayd meeshaan hadda waa 0.01 soo yeelin 0.05 haddaan dhahno $500 akoonka ugu jirta haddaan qodobkaas qaadano default lotka waxaa dhacaysa in meeshan kugu badato $500 ugu jirto $50 ma ka maarantaa waa maya marka qodobkaas dhan meesha ka bixi doona iska ilow akoonkaaga percentage in risk noocan oo kale inaad gelisid waay qodobkan wax weyn ayuu ka caawi doonaa waa meesha ugu muhiimsan. haddaan hore u sii socdo qodobka ku xiga ee saddexaad jooji inaad bedeshaa khasaare xakameeyahaaga trade qaadatay SL meel dhigatay waa diyaarsatay SL kaas trade markuu u socdo suuqa kugu soo laabta suuqa aragtay SL kaaga hadurkinin waa qatar kugu sababi karta in halkaas trade oo SL ka furtay akoonkaaga inuu gubo. khasaare xakameeyahaaga inaad bedeshaa waa qalad kale oo weyn oo kugu sababi kara inaad u bareerto khasaare ka weyn midka isla waqtigaas uu kugu haayo trade-kaas aad ku jirtid sababna u noqon kara inuu halkaas trade gubo akoonkaaga dhan. qodobkan waa qodob muhiim ah intii aad SL-ka trade-kaas ka furi lahayd ama aad sii siki lahayd waxaad kugu habboon in si waqtigaas meenisku kugu haayo inaad ku xirtid hadii kale khatar ka weyn midaas ayaa ku imaan doonta aadan xakameyn karin markasta oo khasaaraha kugu sii weynaadana waa markasta aad trade-kaas xiri doonin oo isdhaysid u dulqaado hadduu soo laabanaya markaasna khatar ama waxa waaye dhibaatada ugu weyn kadibna akoonkaaga wuu guban doonaa. marnaba SL-kaaga ha bedelid marka hore meel cayiman dhigo meesha uu soo gaaro oo invalidation level-ka uu soo gaaro suuqa iskaga har marka hore waxaad dhigataa meel aad ku ogaanaysid inaad qaldan tahay meesha markuu soo gaarana suuqa aad iskaga bixaysid suuqa inaad isku maqiiqdi lama rabo oo aad dhahdi jihada ana ka filayo waa ilaa waa inuu soo aadaa. qodobka afraad waa inaad leedahay qorshe ganacsi waa inaad leedahay plan iyo qorshe kuu degsan oo aad markasta trade-ka ku qaadanaysid tusaale inaad tracking markasta gelisid $1,000 kugu jirto $20 inaad trade kasta $20 risk aad gelisid waa qorshahaaga ka mid yahay ha jabanin mar 40 risk aad gelin mar 50 ha gelin mar 20 ha gelin marna wax bedelin tusaale inaad lacag cayman trade gelisid qorshahaaga inay kugu dirsan yihiin wax noocaas oo kale waa inuu qorshahaaga kugu dirsan yahay sidaas oo kale dadku waa kala qorsho duwan yihiin qof kasta personalkiisa ku xiran tahay laakiin sanbad ahaan soo qaadana kuwaas tusaale qorshahaaga waxaa kamid inaadan trade gelin lacagaha correlationiska sidoo kale tusaale qorshahaaga waxaa kamid inaad trade kasta hal trade ka qaadid oo aadan trade badan ka wada furin waxyaabahaas in qorshaha iyo kuwo kale fara badan inaad ku degsan yihiin oo aad raacaysid oo aadan jibinaynin nidaamkaaga midaasna waxay kaa caawin doontaa oo nidaamkaaga haddii aad ku dhegnaatid inaad wax og tahay keliya ay kugu dhacaan oo wax cirka kasoo dhacaysan kugu dhicin. qodobka shanaad waa inaad haysatid khidad ama strategy oo aad soo tijaabisay backtesting aad kusoo samaysay wagalaan content trade oo deemo aad kusoo tijaabisay dadkeena Soomaalida oo ay ugu daran yihiin deemo laguma karo inay soo tijaabiyaan
fudeed ayaa ku furan. waa waxa ugu weyn deemaha oo ku xaqiijinaya inaad noqonaysid trader guulaystay ama mid guuldaraystay. damo practice fara badan aad kusoo samaysid meel ka baxsan real moneydaada ama lacagtaada suuqa tooska aad usoo dhigaysid, waa damo wax badan ama khibrad badan aad heli doontid. lacagtaada suuqana kula soo ordin siiba haddaad tahay qof cusub, ugu yaraan content trade wax ka badan deemo kusoo sameey oo isla halkaas strategy kaliya aad tijaabinaysid. استراتيجيها بدلت لما ربو كو بدن سو تجارب marka wax baranaysa marba mid aad tijaabinaysa waa la ogyahay qof kasta soo maray marba mid isku daya maalin markuu hayo wuxuu leeyahay markuu ku khasaaro waxba ka qaldan wax yar ku bedela hadan wax yar ka sii bedela wuxuu ku darsanaa استراتيجيad lama abadi noqonaysa mid cusub oo baranaa hadan uu sii bedela hadan mid kale oo baranaa uu sii bedela maadaama jujub meesha joog kama bixin oo wareeraysa suuqan wax استراتيجيad ku wanaagsan oo weynaysa. كو استراتيجية اسكو ولا مid maaha qofkan sidii ugu shaqeysan aad ugu shaqeyso waajib ma noqon doonto because dadka personalkooda ayaa kala duwan, qofka shakhsiyad u gaar ayuu leeyahay. sidoo kale waxaad maskaxda ku dartaa in qof kasta loogu talagalay inuu trader noqdo, sida qof kasta aan loogu talagalay inuu dhakhtar noqdo ama engineer noqdo. wajida qofka shakhsiyadiisa ay ku xiran tahay inuu u samaysan yahay ama oo heerka baashas ka soo bixi karo inuu dulqaadkaas u leeyahay oo trader ku noqon lahaa. dad aan dulqaad lahayn jiro marka dadku ay kala duwan yihiin, adiga position kale inuu trading ahaan laga yaabo waxyaabo kale aad ku fiican tahay. marka haddaad is aragtid in wax aad ka keenaynin oo wax kasta aad samaysay personalkaaga ku soo bixin ha isku dhibin, faraha iska qaad inta lacag badan ku gubi lahayd. laakiin haddii aad tahay waxaan qofka bixi karaa soo tahay oo markasta dhiiran oo dulqaad u leh, markasta aqoontaad inaad badisid oo aad dadaashid hal system aad ku dhigtid ilaa si fiican ugu mirbelinaysid ayaan kugula talin lahaa. sidoo kale mid ogsoon ma jiro system shaqeeya maalin kasta suuqan, maalin kasta suuqan system toos uga shaqeeyo lacag looga sameeyo ma jiro. systemada xilliyo cayiman ay shaqeeyaan, mar faa'iido leeyihiin mar khasaare leeyihiin, waxaas dhan waa ay ka sameeyeen yihiin. istiraatiijiyadaha oo mid 100% ah ma jirto, laakiin adiga waxaa la rabaa inaad ogaatid istiraatiijiyada waqtiga shaqeysa iyo waqtiga shaqeyn inaad og tahay aadan maalin kasta trade galaynin. dadka ugu badan suuqan ku rafaadan waa retail traders waxay u badan yihiin day trader wallahi ama day trader scalp waxaas u badan yihiin. lacag yar oo qofka ku soo shubana bib yar oo suuqan ka raadina 20 bib 10 bib lad weyn oo ku galaa, sidoo lacagtaas yarka u gurubsanayo marka dambe trade oo galaa halkaas trade lacagta dib ugu naqsan doona, halkaas trade kaliya uu khasaaray maadaama uu sameeyna lad weyn oo ku galay. asalka ku fur ciladaha hadda soo sheegay qabsanaya qofkaas kadib akoonkiisa sidoo ku gubanaa waa cilad ugu weyn dadka haysata. waxa kuula talinaha marba da istiraatiijiyad baranaysid ku personalka ku inay ku soo baxayso diyaar tahay qof dulqaad leh inaad istiraatiijiyada waqtiyada dhaadheer fursada looga faa'iideysto kale inaad raadisid. haddii aad tahay ma dulqaad u leh inaad maanta charts ka fiirisid istiraatiijiyad kugu soo baxaysa inaad adin raadsatid. wajida aniga ama maalin kasta suuqan ma dhex taagin inaad dad wax baraya ma ahane oo maalin kasta ma trade gareyna oo ula jeedaa waxay leeyahay ma trade gareyna fursad ku suuqana si oo trading ay galayna waqti bilo in iska socdaan macquula. marka taas waxay iga caawinaysaa personalkayga saas ku soo baxay Soomaa waxay iga caawinaysaa marka in oo istiraatiijiyada ay anfacdo maadaama dulqaad u leeyahay inaan suuq waxaan. marka qof kasta saas oo kale dadku ay kala duwan yihiin, marka adiga kugu haboon raadso qodobka shanaad sida istiraatiijiyad aad soo tijaabisay inaad haysatid guul ay record doontaa in akoonka uu ka gubto si aan marba istiraatiijiyada tijaabinaysid akoonka uu ku gubanayo sidaas. marka muuqaalkeena maanta inta ku soo gabagabeeyo ayaan jeclahay oo maasantihiin. hadduu muuqaalkan ku qanciyo like saar, asxaabtaadana la wadaag si ay u anfacdo. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si markasta aan muuqaal u soo dhigno oo aad horey uga aragtid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.